Shirka kor-joogtaynta iyo iskuduwidda tashigii koowaad ee horumarinta qaranka sagaalaad ayaa maanta wuxuu ka furmay caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ee magaalada Jowhar. Shirkani ayaa sidoo jira waxa uu daadihinaya wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mas'uuliin ka socota wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabelle. kulanka ayaa la isku soo qaaday aaraha kala duwan oo ku saabsan sidii looga bixi lahaa saboolnimada iyo sidii horumar bulshada deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ay u gaari lahayd. kulankani ayaa ah mid daba socda kulan horay uga dhacay caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle 12 February ilaa 16 February oo dowlad goboleedka Hirshabelle baahiyaha ka jira hore u gudbisay. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta horumarinta caalamiga dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in maanta ay u fadhiyaan baahiyo kala duwan oo horay Hirshabelle u gudbisay waxyaabihii laga diiwaan geliyay. kulankan wada tashiga ah oo daba socda kulanka hore ee wada tashiga NDB-gii sagaalaad qorshihii sagaalaad roundiga koowaad. marka shirkan sida u joodaanba wuxuu kaabaya shirka hore qorshihii koowaad hore loo qabtay February 12 ilaa 16 aan la tashanay bulshada rayidka golaha wasiirada agaasimayaasha iyo bulshada rayidka. marka kulanka wixii ka soo baxay report ah in maanta aan kala war qaadano kadibna aan fiirino wixii comments-ka ahaa reer Hirshabelle hore ugu dhaheen NDB-kii hore ayaa maanta u fadhinaa. waxaa isna halkaasi ka hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Cabdiqani Muuse Faarax wuxuuna sheegay qorshahani muhiimadda bulshada uu leeyahay. qorshahan waxaa samaystay Soomaaliyan iska leh waxaan ugu talagalnay marka maamulka Hirshabelle baahiyaha uu soo gudbistay haddii wax ka maqeen wax lagu daro haddii ay wax ku sidiisayna inaan maanta noo ansixisaan aad nagu raacdaan haddii la yiraahdo sababtoo ah waxaa loo gudbiyay IMF loo gudbiyay 30koodii March. ugu dambeyntii waxaa isna halkaasi ka hadlay Muuse Maxamed Cusmaan la taliyaha wasaaradda qorsheynta qaranka. sida la socotaan qorshe hadda dhamaanay wuxuu ahaa 3 sano 2017 ilaa 2019 insha Allah waxaan u dhamaan doonaa December sanadkan. marka waxa loo baahdo in la qoro qorshe ka lagu bedelayo oo waxyaabihii qabsoomeyna halka laga sii qaado waxyaabahan qabsoomina halka lagu address gareyn doono insha Allah. qorshaha hadda la qoray dhamaanay wuxuu 3 sano aad buu gaabnaa dal marka horumarkiisa laga hadlayna 3 sano aad buu gaaban tahay. qorshahan wuxuu noqon doonaa hadda mid 5 sano ah si aynu qorsheyn u sameynano shuruudii uga soo baxnay deyn cafintana aynu uga soo baxno. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.